Maanta waxay ahayd maalin iga duwan maalmaha kale, sababtoo waxaan dib ugu laabtay iskoolkaygii oo igu dambeysay sanado dhowr ah kadib dib aan ugu laabtay. Wadada dheeraad iskoolka markaan kusii socday, qalbigayga waxaa kusoo degay xasuuso fara badan. Markaa iskoolka u socon jiray, wadada inta jeer oo qaadi jiray, sida iskoolka siduu ahaa markaa tagay, kalarada kala duwan, safka sida macallimiinta u geliyeen ardayda, adkaarta si u kala qaadan. Maasha Allah, waxyaalaha iskoolkii gaarka ah waxaa ka mid ah in subax walbo adkaar la akhriyo. Adkaarta jimicsiga sameynayaan, kalarada kala duwan ee gabdhaha, safka sida loo galaayo, nidaamka wallaahi waxay ahayd xasuus aad u qurux badan. xasuus aad u qurux badan ahayd oo ku faraxsanaa inaan iskoolkayga tago. xasuuso badan oo qalbigayga mar hore aan ku keediyey dib iigu soo baaxay. safka ardayda si u soconayaan, nidaamka fasal in la isku raaco, maasha Allah waxay ahayd waxaan laga sheekeyn karin. looga tagtayna way la timid haddana alxamdulilah. gabdhaha naga qaar waxaa waaye way isbedeleen, ayagoo cadcad bay noo yimaadeen qaar, laakiin miskii daaci bay ahayd. waxaa intaas u dheer in badan waad aragteen gabar waxay ahayd diinta faafiso oo u soo gashay baraha bulshada, dacwad islaam inay ku gudato. aad baan oga helnay, ilaahay ha barakeeyo. haddana salaam bay noo wadahay, bal insha Allah wax yar ku ixtiraama aamusnaanta. السلام عليكم. أنا أول فرح سنة إلى ما تسكر في صوت وحده. مرة فرح سنة ما تنادي أوصل لعبة. وهذا من ذلك المستقبل كان. أهلها جماعة صدق يصدق على أهلها مرحلة. فحين كل تينا يا مدام الدراسة برشا رمضان إن مرور بعد احترامتان معلمين والدك إلى عابسان. صرت والد مرور بولا عاوية ومرور بولا رشا يكون في ناسه. waxaa kaloo aan kula dardaarmayaa maadaama qaarkiin telefoonada haystaan, telefoonada inaad ka faa'iidaystaan inaad noloshiina ku dhisataan. tusaale kale telefoon haystaan, internet waa gashaa, laakiin internetka wuxuu leeyahay laba fursadood. fursad ah inaad noloshaada ku dubin kartid, inaad noloshaada ku dhisan kartid. waxaad ka dhisan kartaa inaad luqad ku barato, inaad xirfad cusub ku barato. dhan kale waxaad ku samayn kartaa inaad maanta muuqaalo ka daawad aan macno kuu lahayn. labadoo adaa doorasho ule markuu telefoon gacantaada ku jiro. intiina aan haysana markay xaafad tagaan walaalada ka khatar samahan ya waayahay. sidoo kale waxaan idin leeyahay waa idinku faraxsana, waan idinku faanayaa juhdiga aad bixinaysaan. qof walba maanta markuu imaanaya waxbarashada waalidka waxaa la subaxii wuuna soo kiciyaa soomaa, laakiin wuxuu noo soo kicinaya waa inaan ku baraarugno soomaa. haddii maanta qof telefoon soo gata ka waran, telefoonkaas uu jecel yahay hadduusan isticmaalin maxaa dhehna uusan ka faa'iidaysan, maxaa dhehna ya kamuu faa'iidaysan maaho. saas la mid ah waxbarashada haddii aadan ka faa'iidaysanin macnaheedu waxay la mid tahay wixii aad rabti waad heshay laakiin kama faa'iidaysan. marka waxaa idin leeyahay waxaan kugula talinayaa maadaama waxbarashada aad soo aadaan maalinkii 6 saacadood ka badan aad ku qaadataan, waa inaad ka bedelnaataan dadka magaalada jooga aan wax baranin. tusaale kale dadka inay ixtiraamku ka muuqdo, in haddaa uniformka xiran tahay iyo haddii aadan xiranaynba ixtiraamka iyo akhlaaqda wanaagsan mar walba ay ka muuqdaan. uniform kaliya arday lagu noqo mar walba arday anaya waxay kaga sheekeynayaan qiso yar oo cajiib ah. hadda kor waxaa la macallin galaas soo gala markaas wuxuu dhahaa qof walba maanta idin ka mid ah waraaqad magaciisa ku qoro. magaciisa markuu ku qoro waxaa la qoraal lagu xiriyo. qof walba waxaa la yiri magacaada soo qabso. 5 daqiiqo waxay ku qaadataa qof walba inuu soo qabto waraaqadiisa. macalinka markuu xirmaayo joogso waxaa sameeyay mar labaad ku noqonayna qof walba waraaqadiisa soo qabto. qofka la magaciisa ku qoro hasiyo. daqiiqad gudahda lagu helaa. marka xikmadu macalinku wuxuu kala wuxuu yiri farxadda waxaas camal marka aad soo walaalka adigana waa helaysaa. marka hore waxay ku qaadatay in waraaqada helo 5 daqiiqo, hadda maxay ku qaadatay in la helo 1 daqiiqo. marka waxaan kugula talinayaa intiina dugsiga dhigato quraanka waad akhrisaan, laakiin intiina waaweyn inaad noloshiina quraanka ku soo dartaan, inaad ixtiraamta mar walba ixtiraamka aad muujisaan, iyo mar walba inaad waxbarashada xirfadaha aad barataan. tusaale kale waxaa laga yaabaa saaka inaad soo aaday laakiin aad wax akhrisid keli ah marka imtixaanku uu jiro. maya anaga imtixaan waxu baranaa ya maya imtixaan waxu baranaa in noloshiina wax ka bedesho. marka iskoolkana ha u arkin ciqaab ee waxaa waa wax noloshiina dhisaayo. adinkana is ixtiraam isku naxariista. macalinkan qaarkeen waxaa laga yaabaa waalidka inay shaqeeyaan soomaan, waalidka ha ka cabsan, hana ka xishoonin inaad ku caawisid waxyaalaha uu ka shaqeeyo. ilaa maanta quruxda kaa muuqata yaa soo muujiye waalidka soomaan. waxaa idin rajeynayaa khayr badan insha Allah, guul baa idin rajeynayaa, waa idin duceeyaa. asalaamu calaykum. inkastoo aan booqday 7 fasal oo dugsi sare ah oo fasalkooda aan ugu tagay maadaama ayaga ay fasalka aysan ku jirin oo uusan qaadi karin badnaashadooda ay badan yihiin darteed,
iima suurtagelin inaan kasoo qaado kaamiro sidoo kale iima suurtagelin in aan duubo waanooyinkii ayaga aan la wadaagayo qaar ka mid ah waanooyinkii waan duubay oo waa idiin soo gudbin doonaa insha allah waana ku faraxsanahay aad baan ugu faraxsanahay inaan dib ula midoobo jiilkiinii yaraa ee markii iskoolka aan ka baxay ayaga yaraa haddana ah jiilkii nagala wareegay iskoolka aad ugu faraxsanahay waxyaalaha la yaab kale oo iskoolkii aan kusoo arkay wuxuu ahaa macallimiintii waxay soo bartay waxa ka haray 3 macallin oo kaliya inta kale macallin aan ka garnaa ma lahan markaas waxa ka dareemaysaa in muddo badan macnaha waqtiga iyo waayaha wax badan ay bedelaan laakiin nidaamkii iskoolka mar walba inuu kasii wanaagsanaado ma ogi mar walba markii sidii uu sii wanaagsanaanay taasna waa mid aad loogu farxo waxyaalaha isoo jeed waxaa ka mid ahaa farshaxanada iskoolka sida quruxda badan ee farshaxan kale geedaha alla waxa xasuusta geedaha waxa fasal walba geedu lahaan jiray geedkeeni oo arkaa geedkeeni yaa raxmaan wallahi bilaa waxaa jirto xiriir ka dhaxeeyo xiriir aad u xooggan oo ka dhaxeeya ardayda gaar ahaan kuwa ku fasalka yihiin xiriir fara badan heer waxay gaaraan ee walaaloobaan badhan wiilasheeni gabdhaheeni aad ugu faraxsanahay iskoolka waxaa lahaa waa درسي دروست عشرة أنا كبدنا عشرة كبدنا أسرع أنا برو هب دخلت سوى رقمين دتك معلمين تنسيدان ولا رقمين أنت عشرة أنا قاعدين إن كبدنا أسرع وانكسي برنا ما دام اختبرنا وكسي